cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani oo maanta booqasho ku yimi xarunta aqalka golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashi Maxamed Faarax kulankaasi oo ay warfidiyeenadu dibadjoog ka hayeen ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa afafka hore aqalka golaha wakiilada Soomaaliland warfidiyeenka kula hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoona uu gudoomiye ciro uu ka hadlay shaqada maalintii shalay ka soo cusbanaatay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag isagoona gudoomiye ciro uu baaq u diray dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag uguna baaqay in nabad iyo xasiloonida ilaaliyaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan taxsuud dirayaa dadkii shacbiga ahaa ee ku geeriyooday shaqadii ka dhacday Ceelaf Weyn shalayto intii dhimatay Ilaahay u naxariisto intii dhaawacsan Ilaahay caafimaad ha siiyo runtii foolxumo weyn bay tahay arintaasi inay si joogtaa maalin walba soo noqoto waxaan u baaqaynaa ciidanka in nabadgeliyada la adkeeyo gudiyadii iyo culimadii iyo salaadiintii waxaan ugu baaqaynaa arintan in si dhakhso ah loo guda galo geesta kale cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu ka hadlay dib u dhac ku yimid doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada uu ku aastaysna 12 bisha 12 2019 kuwaas oo dhawaan shaaciyeen guddiga komishanka doorashooyinka inay doorashooyinkaas aanay dhacin waqtigoodii waxaana gudoomiyaha ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani uu sheegay inaanay suurtagal ahayn dib u dhacaasi doorashadu way qabsoomaysaa baan u sheegayaa shacbiga komishanku aniga waxay leedahay dee waajibkooda inay gutaan oo hadday madaxweynaha walagu qorayaan inay u qoraan bay ahayd laakiin dadka shacbiga inta soo hortaagan inay doorasho dhici mayso taas sax may ahayn farsamo ahaan way kordhi kartaa arrintuna raadkii doorashaday qaaday hadda baarlamaanka waxaa hor yaalla in la kordhiyo komishanka dabeetana labada ku xigtay waxay komishankii la dhisto cusbaa oo ay xilka la wareegaan 15 Oktoobar ka hor markaas haddii waqtiga loo baahdo wax laga wada hadli karo weey laakiin waxaan ku talagelaynaa doorashadu inay waqtigoodii qabsoomaan dhanka kale gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu ka hadlay kulan dhex maray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wafdi ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ka dhacay waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya Soomaalidu waxay tiraahdaa inaad saamajiidiyo sanqartirasho kala leh marka waxay la tahay way caddahay shacbiga reer Soomaaliland waa reer Soomaaliland annagu waa Soomaaliyeed laakiin waxay ka muuqataa ficilkooda wixii ay dadka ku caayeen in iyagu sameeyaan ceeb bay ku tahay